qabyaalad 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 qofkaasi waa qabyaaladiiste waa cunsuri waa qabiiliiste qabyaaladdu waa arrin muddo dheer saameyn ku lahayd bulshada Soomaaliyeed waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dib u dhaca ku keenay bulshada Soomaaliyeed gabi ahaanteedba aan si kooban u kala qaado waxaan isweydiinaynaa ugu horreyn macnaha qabyaaladdu waa in qof ama koox lagu qiimeeyo qabiil tol ama xiriir qoys oo aan lagu qiimeynin cadaalad aqoon iyo karti waa fikrad ku dhisan kala sarreysiinta bulshada iyadoo lagu saleynayo nasab ama cirqi iyo qabiil waa maxay farqiga u dhexeeya qabiil ama qabyaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku yidhi يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف قبيل والنصب كقفكم مراء سيدا إن هبل قبيالنا وإن نصب كقفك سكسو جيدو لغو يسو أم بلغو سرسيو أو لغو قيميو شخصية قفك غيرك وكسو جيدو Soomaalidu waxay asal ahaan ku dhisnaayeen bariga hore nidaam beeleed iyo reer guuraanimo taasoo sababtay in qabiilku noqdo tiir muhiim ah oo nolol iyo ilaalin loo adeegsado oo xeer beegtiisu dan loo adeegsado laakiin xilligan qabyaaladdu waxay noqotay cudur bulsho siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka hor istaagay Soomaalidu inay yeeshaan dawlad xoog leh oo isku duubni iyo horumar ku dhisan haddaba waxaynu maanta mawduucan ku falanqayn doonaa qodobada kale ah lambar 1 saameynta qabyaaladdu ku leedahay dalka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo qodobka labaad sida ay u burburisay rajooyinka mustaqbalka dalka iyo dhalinyarada iyo qodobka saddexaad ugu dambeeya oo ah xalka la taaban karo oo lagu xallin karo cudurkan qabyaaladda ah haddaan ku bilowno qaybta koowaad oo ah saameynta ay qabyaaladdu ku yeelatay dalka Soomaaliya lambar 1 dib u dhac siyaasadeed maanta hogaamiyaasheena siday u badan yihiin waxaa xilka loogu dhiibo xilka ay ku qabsadaan hab qabiil ee looguma dhiibo kartidooda iyo aqoontooda iyo waxay bulshada u gudi karaan iyo u gali karaan taasina waxay dhalisay nidaam dawladeed oo aan cadaalad ku dhisnayn taasoo keentay fawdo iyo faqri iyo dawlad la'aan soo jiitamaysay muddo ka badan 30 sano oo Soomaali maanta ay madaxa kor u qaadi lahayd ayna garan lahayd meesha laga haysto saameynta labaad ay leedahay waxa weeye dagaallo sokeeye iyo kala qaybsanaan mar walba oo bulshadu kala qaybsanaato oo qabiil iyo qabyaalad iyo reernimo wax lagu qaybsado waxaa imanaysa kala qaybsanaan dhanka gudaha ah mar walba dadku kala qaybsanaadaan oo qabiil u kala qaybsanaadaanna waxa aan la huri karin oo mar kasta meesha yaala in dagaal sokeeye ka dhex galo qabyaaladdu waxay ahayd sababtii ugu weyneed ee burburisay dowladda dhexe ee madaxweyne Maxamed Siyaad Barre sanadii 1991 iyadoo Siyaad Barre iyo dowladdiisu ay khaladaad weyn oo saameyn ku yeeshay inay burburtaa ay hore u gashay oo ay ka mid ahayd dilkii culimadii Soomaaliyeed ee ka hadashay arrintii Siyaad Barre ku khaldamay ee ahayd inuu kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala u gafo xeerka qoyska uu ku bedelo aayadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga hadlay suuratu nisaa dhaxalka ahayd iyadoo taasi ay jirto qodobka labaad ee ugu weyn ee dowladda dhexe burburiyay waxa uu ahaa qabyaalad waxaa ka dhashay dagaalo qaraar oo beelo walaalaha haystileen oo si aan weligeed la isku dilin oo cadawgu u dagaalamin ay Soomaalidu iyagoo walaala ah oo isku dhiiga oo isku dada oo isku diina isku af ay isku dagaaleen ilaa qaarkood qaarka kala adoonsadeen taas oo si kala fogeysay bulshada qaybaheeda kala duwan saameynta saddexaad ay yeelatay qabyaaladdu waxa weeye horumarkii oo istaagay mar walba waddanka la soo dooranayo qabyaalad iyo qabiil lagu soo doorto waa mar walba oo kala qaybsanaan gudaha timaado dagaallo sokeeyna yimaadaan mar walba dagaallo sokeeye iyo fawdo iyo dawlad la'aan timaadana horumar haba sheegin inuu istaagay ee uu baaba'aya
qabyaaladdu waxay xanibtay dhismayaha adeegyo dowladeed oo isku mid ah sida waxbarasho, caafimaad, amni iyo waxyaabaha bini'aadanku u baahan yahay aasaasiyaadka la yidhaahdo. Dhaqaalihii wuxuu noqday mid ku dhisan musuqmaasuq iyo kala janjeerid qabiil, halkii uu ka noqon lahaa mid cadaalad lagu wada helo. Marka nidaamka dowligii ku dhismay qabyaalad, waxay noqotay nin walba oo xilka fuulayay inuu hantida dowladda iyo dhaqaalaha dalka u marooriyo cidda ugu dhow nasab ahaan, taasi oo keentay inaan loo sinaan dhaqaalaha dalka yaalla oo aan si guud Soomaalidu aanay uga midaysnayn inay qaybsadaan hantidii kheyraadka dhulka yaalla. Qodobka labaad, saameyn maxay leedahay? Saameynta qabyaaladdu haddaan ka soo hadalnay. Haddaynu ka soo hadalnay saameynta ay qabyaaladdu ku yeelatay dalka guud ahaan, bal waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo ah saameynta ay qabyaaladdu ku yeelatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Ugu horreyn, waxay kala fogeysay dhalinyaradii, waxay ku riday wax lala kala fogaansho iyo niyad jab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo markoodii horeba wajahaya shaqo la'aan iyo fursad la'aan waxaa sii ragaadiyey qabyaaladda, iyagoo markii horeba burburka dalka iyo qabyaaladda iyo waxaas nidaam la'aantu ay shaqo la'aan iyo niyad jab ku riday, ayaa haddana waxa ugu biirtay qabyaaladda wax la yidhaahdo. Halkii ay ku midoobi lahaayeen halgan mideeya, waxaa la kala qaybiyey dhalinyaradii, iyadoo nin walba ninka cidda uu ku beesha yahay ku biiray, halkii uu la jaan qaadi lahaa cidda ku fikirka ah iyo cidda waxqabadka u diyaara dalka inuu samayso. Qodobka labaad ee saameyn ugu yeelatay dhalinyarada waxa weeye musuq iyo cadaalad darro. Dhalinyaro fara badan oo maanta aqoon leh oo ka soo bixi kara meesha loo dhiibo oo horumar waddanka gaadhsiin kara ayaa shaqooyinkii looga reebay sababo qabiil dartood, halka dad aan munaasib ku ahaynna loo dhiibay shaqooyin aanay awood lahayn, iyagoo loogu dhiibay annagaa soo reera iyo anaa meesha u jooga. Taasi oo keentay in dalka isla burburo, kii shaqada haystay iyo kii shaqada la'aaba waddanka isla burburo. Taasi oo keentay musuqmaasuq baahsan oo ragaadiyay dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha. Tusaale, ninka maanta xildhibaan loo magacaabo ama wasiir loo magacaabay waxa uu ku tuntunsanayaa inuu walaalkii ama reerkooga uu ku taxo xilalka iyo ku mutaysan aqoon iyo karti, balse uu u dhiibayo aanay ii dhow yihiin. Sababta kale dhalinyarada ku yeelatay ama saameynta kale dhalinyarada ku yeelatay waxa weeye xagjirnimo iyo tahriib. Dhalinyaradu markii ay dareemeen cadaalad darro iyo qabyaalad ayay ku dhaceen dabeennada kooxo xag jira oo ay yiraahdeen haddii halkanba lagugu ciilay halkaaba kusoo ciilbaxa. Taasi oo keentay dhalinyaro fara badan oo waddanka u adeegi lahayd inay xagga kale ka soo jeestaan. Ugu dambeyntii, ama qodobka saddexaad ee ugu dambeeyay waa xalka qabyaaladda iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Lambar kow, in Ilaahay loo laabto subxaana wa tacaala oo kitaabka Ilaahay la qabsado. Wax ummadda midayn kara oo cadaalad u samayn kara oo xalka ummadda ku jira oo aan kitaabka ahayn ma jiro. Wax walba hadday Soomaali samayso oo si walba isugu daydo inay soo ceshato nidaam fiican inay samaysato oo inay cadaalad hesho ay isku daydo oo ay kitaabka Ilaahayna ag marto sinaba uma helayso. Ugu horreyn waa markaa inay kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnihiisa qabsadaan oo ay ka helayaan wax walba horumar adduun iyo aakhira ah. Qodobka labaad waxa weeye in la helo dowlad ku dhaqmaysa kitaabka Ilaahay oo qodobkaa horumar hoos imanaysa, in la helo dowlad cadaalad ku dhisan oo aan eex iyo qabyaalad aqoon oo hantida guud ee dalka ka dhaxaysa ilaalisa. Shaqooyinka soo baxa si guud ummadda imtixaan hufan oo cadaalada u kala qaybisa. Qodobka kale waxa weeye in dhalinyarada la kobciyo aqoontooda iyo isku duubnidooda, oo dhalinyarada la baro aqoon ay kula jaanqaadi karaan dhigooda asaagooda caalamka, iyo in dhalinyarada lagu tirtirsiiyo wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraqu, inay isku duubnaadaan oo aanay kala tegin. Ugu dambeyntii, qabyaaladdu waa cudur aad u halis oo hortaagan horumarka bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo ah rajada dalka. Haddii aan si dhaba loo wajihinna waxay sii fogeyn doontaa riyada ah in Soomaaliya noqoto qaran midaysan oo horumar leh. Xalku wuxuu ku jiraa markaa in kitaabka Ilaahay loo laabto, wax la barto, la isku duubnaado. Intaan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.